ayuu isku keenay isagii amaani markuu isku keeni doono wuxuu tegay Dubai amaani buu soo kaxeeyey amaani markuu soo kaxeeyey ayuu ku yidhi amaani Dubai buu ku soo noqday Dubai markuu ku soo noqday amaani buu waday wuxuu ku yidhi amaani guri baan halka ka iibsanayaa oo waxaan ka santegayaa maadaama guri ka iibsanayo ani waad ogtahay mashquul inaan mar kasta ahay oo busy ahay waxaad samaysaa kaalay raac carruurtana halkan in kaga tagayna amaani buu kaxeeyey amaani markuu kaxeeyey iyaduna way faraxday ninkan ay daydaysay maadaama waxay tiri aanu halkan joogin aad halkan ka laadahay gurigii iyo wixii aad ka laadahay oo dee meelihii uu tegi jiray iyo meelihii oo dhan markii ka weyday waxay tiri kolley malaa wuxuu tegay waddankiisii buu noqday xaggaa ka raadi way tagtay markay tagtay xaggii bay isku raaceen wuxuu ku yidhi magacaagan gurigana ku qoraya ina maray sidii bay ku soo baxeen sidii markay ku soo baxeen waxaa dhacday inuu ku yidhaahdo ina mari guri meel guri qadiim ay lahaayeen guri gaboobay oo lahaayeen oo magaalo kale ku yaalay magaalada ay markaa deganaayeen maama ay ku degi doonaan magaalo kale ku yaalay ayuu yidhi oo ka baxsan magaalada koonaheega ah ayuu ku yidhi ina mari gurigayga waan soo eegaya gurigaas oo waan sameeyey laakiin si fiican umaan samayn xaaladiisii waxaasan isan eegayaa ina mari waxa laga yaabaa inaan iibiyo waan soo jeegaraynay haddii la iga iibsado waan iibin doonaa isagana marka meeshaas gurigaas ama gurigaa wixii ka sareeya ama wixii ka hoose cidiba ma deganaba iyagaaba gurigaa waxoogaa yara degay gurigii markuu geeyey ay gurigii tageen waxa gurigii kusii sugaya ninkii kale amaani ay saaxiibka ahaayeen khaayinka ahaa iyadana markii ay amaani aragtay ninkii way naxday oh my god bay dhahday markay naxday ayaa waxay egtaa marna ninkeedii marna ninkii labadiiba meesha la iskugu keenay labadii markii la iskugu keenay sawiradeedii iyo fidiyoyadeedii ayuu tusaa markaasay tiraahdaa iga raali noqo mar dambe ma dhacayso albaab ninkii bay iska sasabtaa laakiin wax kasta imika way dhammaadeen wadnaha dhulka tegay naagtii way naxday kan kale wuu baqanayaa wuxuu isleeyahay maxaa dhici doonaa oo markii maaragtay amaani uu arkay iyadina halkan waxaan ku yidhi labadoodii markii la isku keenay ayaa waxaa dhacday labadoodii markii la isku keenay ee ninkii aragtay ayaa wuxuu ku yidhi ma rabtaa 200 oo kun oo kale markii hore laba ugu talagalay markuu meeshan keenayay laba kula soo heshiiyey sawirada markii laga qaadayna labu siiyey markuu halkan ku lahaa gurigan kaalena labu siiyey markiisa 4 buu marayaa ya 400 kun marayaa wuxuu ku yidhi 200 oo kale ma rabtaa 200 kun ya ma rabtaa haa buu yidhi wuxuu yidhi amaani wuxuu soo iibsaday qori ayuu soo iibsaday wuxuu ku yidhi amaani madaxa ka joogo waa taqayliday habaal waan ku jecelahay waan isjecelnahay ha idilin wuxuu yidhi maanta wuu ku iibinayaa ninka aniga iga raacday maanta wuu ku iibinayaa isagana gacantiisa kugu dili doona kiina wadnaha dhacay wuu naxay wuxuu is yidhi wallaahi maanta ninkani wax meesha idii keenay labadiinaba inuu idin khaarajiyo marka isaga kan michael kuu baxsan karayay laakiin mar kasta damac baa wada mar kasta wuxuu isleeyahay lacag korso waa ka 200 loo dhiibay kale lagu yidhi shandadaas dhabarkaaga taala soo qaado lacagta ku jirto wuu kala batay marna wuu baqanayaa marna damac baa haya wuxuu isleeyahay wallahi lacagtan qaado waxaan u sheegay inaanu isaga maaragtay farsaaraynin oo waxba u dirsanaynin yani aanu adeegaynaynin haddii uu wuxuu rabo u sameeyo wuxuu yidhi wax alle waxaan ku idhaahdo samee dad samaysid waxba kuguma dhacayaan 200 kuna qaado 600 saas ku qaado amaanina dil amaani buu dilay baskooladii buu ku furay baskoolad maaha qorigii buu ku furay rashaashkii
halkan laabta ha kaga dhufto madaxa ka togto intaasoo rasaasadood buu ku dhuftay kana qoriga u sii furay markaas waxa weeyaan uu saas ku sameeyey markiiba naftu way ka baxday amaani wuxuu yidhi wallaahi doorkaagii baa yimaday wuxuu ku yidhi adigu lacagtaada iska qaado iska bax lacagtaada iska qaado iska bax adigu aniga maaragtay meydkan iyo waxana habeynaya idinku waxaad isweydiinaysaan meeshan maaragtay qoryaha iyo maaragtay qofka lagu dilay waxaa soo rasaasi dhacayaan lama ogaanayo miya meeshan dadka degani waxa weeyaan markasta dad xabad rida hadday farax leeyihiin xabad bay ridaan haddii maaragtay qof u najaxo iskuulku ka najaxo xabad bay ridaan mar kasta xabad bay ridaan marka waa shay caadiya agtooda in mar kasta xabad la rido waa iska ogtiinoo libnaan dagaala ka socday marka sheekadan waxa weeyaan 2012 weeyaan sheekadani bilowgeedana waxa ahaa 2011 ay sheekadan bilaabatay cilaaqadoodu laakiin waqtigaas saasay ahayd ilaa 2012 weeyaan sheekadani marka libnaanna xaaladeedu way iska kacsanayd saas darteed ayaan looga shakiyeen waxba markasta dee xabad baa dhacaysa waxa dhacday inuu ku yidhaahdo iska bax markuu iska baxay ay tegeen ayuu iska tegey kana meydkii uu ka dul talaabsaday iska tegey gurigiisii iska tegey gurigiisii markuu iska tegey ninkan wuxuu u tegey asxaabtiisii oo qaar maaragtay social media caanka ah ayuu kiyo baqanaya oo marna lacagtii ku faraxsan haddana baqanayo warwarsan maadaama qof dilay waa weligii isagu wax muu dilin oo maaragtay naadigaas iyo maaragtay waxa dhar la xaysiiyey waxyaalahan iyo noloshiisa waxaas ay social media dadkan iskala socday oo waxaan inuu sawiro meelaha isu soo dhigdhigay waxyaalaha mooyaan noloshiisa qof muu dilin waxaan markii ugu horreysay ahayd wuxuu sameeyey asxaabtiisa buu u tegey asxaabtiisa markuu tegey ayaa wuxuu gabadh buu weydiiyey maaragtay meesha joogtay ayuu ku yidhi horta wallaahi waxaad igu tiri hebel waxaa hebel may wiil ay saaxiiba yihiin wuxuu weydiiyey wiil asxaab yihiin ayuu ku yidhi gabadhan asxaabta aad tihidiin waxay jira soo maaha walaalkeed oo looyar soo walaalkeed maaha ha walaalkeed waa looyar gabadhii buu la hadlay looyarkii buu weydiiyey telefoonkiisii looyarkii buu ka qaatay marka xaaladiisana uu rabaa inuu ugu sheego looyarkii buu la xidhiidhay looyarkii markuu la xidhiidhay ayuu u sheegay wax alle wuxuu soo sameeyey lacagtuu qaatay wax kasta looyarkiina wuxuu isdhahay wallaahi lacagta qaado ninkana sishinka gee looyarkii baa u yeedhay wuu la kulmay maktabkiisa buugu tegey ku yidhi waan ku caawinayaa laakiin 100,000 ayaan kaa rabaa inaan qaato oo dollar 100,000 oo euro inaan ka qaataan rabaa kiina waa kacay yidhi 100,000 oo euro sid u qaadanaysa anaaba waxaan ku yidhi qof dhan u dilayna lacagtaas qaatee idhegeyse buu yidhi haddii aad ma aragtay aad yeeli weydo waxaan ku leeyahay adiga ayaa ku tegi doona waayo iminka sirta adigoo dhan waan hayaa wax kastana waad ii sheegtay marka qofka maxaamigaaga noqon looyarkaaga noqonaya waa inuu aniga ahaado ninkana wuxuu rabaa inuu sijinka geeyo markuu sheekada u sheegay wuxuu yidhi maxamuud ayaynu korka ka saaraynaa wax kasta kaale waxaynu tegaynaa meesha askarta markaynu tagno ninkanaynu dembiga korka ka saaraynaa ninkii waa ka naxay oo yidhi ma tegay anigu waxaan kuugu yimida inaad xidho mise waxaan kuugu yimida inaad caawiso ood xal ii raadiso markaasuu yidhi may waan tahriibaya waan baxsanaya markaasuu yidhi haddii aad baxsatid oo tahriibtid ninkii aad gabadhiisa dishay waxaa laga yaabaa inuu ku sheego inaad waxaasoo lacag islatid oo waxaasoo lacag haysatid oo lagu soo qabto oo lagu helo ayaa laga yaabaa marka intii lagu soo qaban lahaa ama uu ku ashkatayn lahaa adigu isdhiib wax kastoo dembiyana aynu ninka korka ka saarno kolleyba waa lagu soo qabanaya ninkaasina wuu ku ashkataynaya xalka keliya waxa weeyaan kaga hore waa ka markii uu waxaan ku yidhi dee dhan kasta kaga soo wareegay uu ka baqadsiiyey wuxuu sameeyey ninkii wuxuu ku lahaa aanu samayno
waxaa la tegey askartaa loo tegey. askarta markii loo tegey ayaa maxamuud korka laga saaray wax kasta. markii wax kasta korka laga saaray askartii may rumaysan sheekadoodii. ninkii waa la joojiyey. ninkii markii la joojiyey horta kow sheekada intaan idiin soo dhaafin gurigii baa la tegey. ninkii lacagtii meeshu ku soo qarsaday ayaa la tegey. wuxuu soo siiyey 100,000 oo euro ayuu soo siiyey ninkii looyarka ahaa. marka ninkan wuxuu rabaa inuu ninkan xidho kadibna lacagtiisa gurto. uu yidhaahdo dad baan rashwo siinaya, dad baan lacag siinaya, anaa meesha kaa soo saaray. lacagtii markuu ka qaatay kanna waa la istaajiyey. watan askartii markii loo tegey la xidhay lagu yidhi joog adigu meesha, anagu sheekadan kumaanu qancin. askartii way baxeen. waxay u tegeen meeshii meydka lagu sheegay ee la tegey. horta ugu sheegay wax kasta say u dhaceen, laakiin wax badan buu qariyey. wuxuu tegeen askartii meeshii meydku yaalay. meydkii markii loo tegey waaba gabadhiyo meeshii meydkeegu yaalo oo waxba laga qaban, sideedii lagaga tegey. haddana waxaa la tegey guriga maxamuud. guriga maxamuud markii la tegey ninkii oo caadi inaan waxba samayn ayaa loo tegey. sidii baa lagu soo qabtay labadii. markii sidii lagu soo qabtay sheekadii way fashilantay inuu ninkani dilay gabadhii ay ku lahaayeen anaa dilay. uu ku yidhi hebel baa dilay gabadhiisii. intuuska ay arkay ayaa waxaan ku sheekadii way fashilantay. laakiin maxamuud waxba ilaa iminka laguma hayo, sababtoo ah wuxuu yidhi anigu lacag maan siinin ninkan. wuxuu yidhi 600,000 buu siiyey. sawiradiiba igaga bedeshay. naagtiisa sawiro cilaaqa lahaa isagaasaan sameeyey. markii dambe labadooda la isku keenay. labadooda markii la isku keenay isaas yidhi ayuu yidhi anigu lacag siiyey haba yaraatee ma jirto. markaasuu yidhi lacagta waan idin tusayaa. gurigoogii baa la tegey. gurigoogii markii la tegey ayaa lacagtii la soo qaaday. lacagtii markii la soo qaaday ayuu haddana waxay yimday ninkii looyarka ahaa ordaya oo lacagtii noqotay lacag la sawiray oon lacag koobiya, yani oon lacag saxa ahayn. waa ka ninkii dacwad ku qaaday ee ashkateeyey ee yidhi waa khaayin, wuu ikhaayimay, lacagtana isiiyey. kii kalena lacagtii kale 500,000 hadhayna waa la keenay. askartiiba guriga waa ka keentay. waa lacag koobiya. wuxuu yidhi lacagtanu isiiyey. taana waxay caddaynaysaa inuu sawiradii iga qaato oon ku kala bedelanin lacag, oo ninkan sawiradii aan siiyey iyo kamaradii aan ku sawiray wax kasta. kiina wuu dafiray. wuxuu yidhi anigu waxba maan siinin, abadan waxbaba maan siinin, been buu sheegayaa. laakiin naagtayda cilaaqa way lahaayeen, isagaana dilay. waayo dilkii qorigu ku dilay gacantiisa ku qabtay baa la hayaa, ma dafiri karo. wuxuu yidhi isagaa ii diray inaan dilo, lacagtaasna i siiyey. markuu yidhi isagaa dilay waxaa lagu xukumay 3 sano. horta labadiiba waa la xidhay. labadiiba markii la istaajiyey ee muddo la istaajiyeyna xukunkii muddo socday ayuu wuxuu dhammaystay maxamuud 3 sano. waxaa la soo dayn doonaa 2018 ayaa maxamuud la soo dayn doonaa. wuu dhammaystay xukunkiisii intii la istaajiyey. oo waayo maaragtay dilkan cidda geysatay saxda la helayay 3 sano ayuu cabay. kii kalena waxaa lagu xukumay 17 sano, sababtoo ah isaga waxaasoo dhan ka dambeeyey. kana waxaa la yidhi sharaf iyo waxaas yidhaahdeen. wuxuu u dilay inuu gabadhiisa maaragtay khaayintay oo sharaftiisii waxaan ku nolosheedii ku ciyaartay. saasaa sabab u ahayd. marka isaga 3 sanaa lagu xukumay. 3 sanana waabuu dhammaystay. waayo ilaa 2015 ilaa waqtigan uu soo bixi doono ay sheekadu socotay. waqti dheer bay socotay. sidii baa loogu xidhay. markii dilku dhacay waa 2015. intii ka horeysana waxay ahaayeen intii naagtana lacagta laga guuriyey waxaas waxay ahaayeen sanawaad badan. waxay soo daayay ninkii 2018 markii la soo daayay. nimanka shaqadiisii buu bilaabay. labadiisii gabdhood gabadh baa ka dhimatay oo gabadh kale u guursaday. iminka wuxuu noloshii la soo qabsanayaa. dilkiina sidii buu ku dhammaaday oo waxaa ninkaasaa lagu xukumay 17 sano. wassalaamu calaykum waraxmatullahi